magaalada Muqdisho waxaa ku nool ku dhawaad 4 milyan dad lagu qiyaasay iyadoo gudaha magaalada Muqdisho ay ka howlgalaan kaliya 5 baabuur oo ah kuwa dabdamiska. warbixin arintaas ku saabsan waxa uu korgalay magaalada Muqdisho ay nooga soo diray wariyahayaga Cabduqaadir Cumar Cabdulle Fiidka. waaxda dabdamiska gurmadka degdega ah ee magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa ka howlgala 5 baabuurta dabdamiska waxaana caasimadani ku nool ku dhawaad 4 milyan oo qof. runtii gaadiidka gurmadka degdega ah dabdamisyada hadda 5 xabaan haysanaa marka kuma filla mana u dhowa in lagu maamulo waxa waaye ama gurmad ahaan ay shacab waxa way heegan loo galiyo. gobolkani caasimadda haleeshay ma haysataa qalab dabdamis oo dhameystiran isla markaana dabooli kara baahida gobol caasimadeed. kuma dhigi karo qalab dhameystiran oo baahida caasimadda dabooli kara haysta kuma dhigi karo. waxaan ku dhigi karaa maanta 17 degmo hadii wax ka dhacay meel kasta ay wax ka dhacaan cid kaliya la sugaya anaga waaye waan ku qasbanahay inaan tagno waana tagnaa 17 degmo. adeega dabdamiska gobolka Banaadir waxa aasaasay Cabdullaahi Maxamed Cabdulle oo ku magac dheersanay waxa uu horay u ahaan jiray ciyaariyahan heer qaran ah oo ordi jiray orodada 1500 mitir. waxa uu aasaasay sanadkii 2012 gaar ahaan bishii December. sidaasina waxa lagu helay dabdamiskii ugu horeeyay ee caasimaddu ay yeelato tan iyo wixii ka dambeeyay sanadkii 1991. Master Sanay oo qudhiisa agaasimo ka noqday waaxda dabdamiska gobolka wuxuu iscasilay sanadkii tagay 2017. imika waxa xilkaasi haya Cabdiqani Maxamed Axmed oo wareysi gaar ah kula yeeshay xarunta waaxda gurmadka degdega ee gobolka ay ku leedahay degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho. agaasimo Cabdiqani oo ah shakhsi dhalinyaro ah ayaan weydiiyay intaan kula sugnaa gudaha xarunta in uu xilkani aqoonteeda leeyahay. si wanaagsan aniga waxaan kamid ahaa dadkii tababarada ku soo qaatay dhinaca dibadda ilaa Nairobi 2 jeer oo ilaa advance heer caalami ka haysta macalinimo marka khibradeedna waa leeyahay aqoonteedna waa leeyahay waana ku soo shaqeeyay ma aha waxa waaye meel kore laga soo tuuray oo xaruntan la isaga dhiibay ma aha. maxaa caqabado soo wajaha shaqaalaha dabdamiska inta ay ku guda jiraan shaqada daminta dababka sida lama filaanka ah magaalada Muqdisho uga kaca? caqabadaha ugu weyn waxa waaye markaan dabka aadna la qabsadaan waxaan ku shaqeynaa 5 baabuur oo dabdamis ah markaan aadna bakaaro kale ceel ma lahan oo biyo laga qaadanayo waxay noqonaysaa markaan biyo dabka ku shubno ama damintii aan bilaabno inaan u soo naqan haddana Boondheere aan ka soo doonno biyihii. marka dadka ganacsatada waxaan ka codsanaynaa inay sameystaan ceelal oo laga qaato biyaha sida u fududaadaan dabka damintiisa. laakiin dabka hadaa dhaad bakaaran ka soo taga ama Madiino aan biyaha waxa u soo doonaa Boondheere way adag tahay dhibaatada jidka jirtana waa u maamulka degmooyinka gobolka sidee bay ula shaqeeyaan waaxda dabdamiska gobolka? taliye Shariif oo kamid ah horjoogayaasha shaqaalaha waaxda dabdamiska xilliyada shaqada ayaa ka waramaya. mar walba u sheegnaa horta gudoomiyaalka degmooyinka way haystaan wacyigelinta qaarna waxay u maleeyaan waaxdan inay bijirin markay dabkacaan leeba soo xasuustaan baa dhibaatada jirta. waxa qaar gudoomiye degmo waxa arkaysaa degmo xukumayo ku dhahay meesha aad degantiin hadaa ma ka saay degmo dhan oo haystaa oo maamulka yahay oo mas'uulka yahay. dadka badin nolol shaqay waxa waaye booliska iyo nabad sugidda oo nolol qayb qaata markay dabkacaan isla markiina soo wargeliyaan dadka aadka nolol shaqay oo haween iyo maalin taagan. ugu dambeyntii agaasimaha waaxda dabdamiska gobolka Banaadir mudane Cabdiqani Maxamed Axmed ayaa weydiiyay rajadiisa dhowrka sano ee soo aadan. aniga qorsheyn waxa waaye in gurmadka degdega gobolka Banaadir 17 degmaba in laga helo xarun gurmad degdeg oo isku filaato degmo kasta isku filaato si waxa waaye bulshada ku nool degmadaas aysan u dareemin wax gurmad la'aan ah emergency la'aan aysan u dareemin. qorshaha noo degan waliba qorshooyinka aad kan isleenahay waxa waa ka mar dhalin kartaa weeye
run ahaantiina baleenka xataa magaalada waxa weeye hadda ay u samaysan tahay marka laga hadlayo gurmadka degdega wuxuu u baahan yahay dibdamisyadu systemka loogu talagalay wadooyinka biyaha inay ka qaataan isgoysyada in garanaysaa biyo la geliyo in xataa dabaqyada dhaadheer ay la dhisayo in lagu sameeyo fire safety waxa la yiraahdo oo in dabaqada iska dhistid aadan ku talagelin dabaqa inuu dab ka dhici karo ama aadan u sameynba systemkii dabka oo lagu hortagay aadan u sameyn oo dareemi kartaa qofkaas hantidiisa hadhowta iyadoo gubaniisu fiirsanaya sanadkan 2018 ee jira waxa ka yar 40 cisho oo kaliya ayaa magaalada Muqdisho waxa ka kacay dhowr dab oo siyaabo kala duwan uga kacay gudaha caasimadda Muqdisho iyadoona baahiyo badan oo xagga adeega gurmadka degdega ah uu jiro Cabdulqaadir Umar Cabdulla Fiidka magaalada caasimadda ee Muqdisho Somali Cable TV